Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Custom Automated System. Maanta waxaynu baran doonaa sida loo diyaarsado warqadda loo yaqaano exit note. Exit note waa jarjarta u dambeysa ee laga rabo in uu maro qofka ganacsadaha ah ama qofka brokerka ah. Exit note waa warqad koobsanaysa macluumaad fara badan oo ay kaga baahan yihiin xafiisyada customku. Macluumaadkaasi run ahaantii waxa ku cad taariikhda gaadhiga, magaca darawalka ku qaadaya badeecadaada, alaabta aad la baxayso inta ay tahay ama inta items ay tahay ama ay ka kooban tahay, sida aad ula baxayso ee aad doorbidaysa adigu ma maalmo kala duwan baad la baxaysa alaabtaada mise waxa weeye isla hal maalin baad waxa weeye alaabtaada aad la baxaysa alaabtaada. Run ahaantii waa processka aad hore usoo qaaday ee ka koobnaa inaad badeecadaada soo cadaysato, ee ka koobnayd in aad paymentiga aad soo bixiso, ee ka koobnayd in alaabtaada lagu soo fasaxo. Ugu dambeyntii alaabtaadi waxay joogtaa akoonkaaga. Run ahaantii akoonkaaga markaan ku leeyahay waxa weeye markaad lagu sameynayay somkaas waxaa lagu yidhi akoon baa lagaa siinaya kaas oo aad ku gelayso username iyo password. Akoonkaaga kaasaa markaa laga wadaa. akoonkaaga markaa ayaba iminka badeecadu dhex taagan tahay. It means all the process customka wixii ku xidhnaa oo dhan waxa weeye waa ay kasoo gudubtay. Haddaba saan u diyaarsanayaa baa taalla warqadda loo yaqaano exit note. Run ahaantii waxaad boqonaysaa akoonkaaga. ila soco, waxaan boqonayaa akoonkaygaan boqonayaa. isla markaan akoonkayga booqdo waxaa ii soo baxaya shaashada noocan oo kale ah. shaashadan mar haddaad akoon aad hore u lahayd waxa weeye waxaad la tahay run ahaantii waxaad la tahay familiar ama waa aad taqaanaa. Okay, waxa aan toos u beegsanayaa goods declaration. waxay soo baxaya markaa option fara badan in aan badeecad cusub aan declare garaysto, in aan raadiyo badeecad, iyo in aan diyaarsado warqadda loo yaqaano exit note. warqadaasaan ku dhufanaya marka exit note baan ku dhufanaya optionkaasi. waxay soo baxaya pop up noocan oo kale ah ama soo shaashad noocan oo kale ay soo baxaysa taasoo ii sahlaysa in aan ka raadiyo xogihii hore ee aan diyaarsaday iyo in aan ku dari karo xog cusub oo ah ta aan minka aan u socdo. waxaan leeyahay add ii abuur mid cusub. run ahaantii shaashada noocan oo kale ayaa ku soo baxaysa. officekaad dooranaysaa oo ah run ahaantii officeada lagugu jaangoynayo ama dekada ha ahaato ama ha ahaato airportka ama labadaba aad iskugu jirtid. Okay, aniga akoonkayga waxaad ku samaysan ama aan ka shaqeeyaa waxaan bedelayaa airportka Muqdisho. run ahaantii waxaan dooranayaa declarantiga oo ah aniga ah. waxaan dooranayaa dateka aan badeecadayda aan soo declare gareeyay ama aan processkeeda soo bilaabay oo ah 12 bisha ilaa iyo maanta. waxaan leeyahay markaa processka iigu xiga ama optionka iigu xiga ama jarjarta iigu xigta waxa weeye in aan raadiyo itemskii aan declare garaystay 12 bishii 8 2023 maantana alaabtaasi la ii fasaxay. waxaan leeyahay markaa filter items. markaan filter items aan ku dhufto waxa ii soo baxaya markaa itemskii ay ka koobnaayeen badeecadaydu, kaasoo iminka sheegaya in ay iigu jirto hal badeecad. saad ka arki karaysaa waxa weeye waa airportka Muqdisho. declaratory waa aniga. reference numberkaygu waa 5, r numberkaygu 199, item numberkayguna waxa weeye waa hal item baan wataa oo kaasoo ka kooban 144 package ama kartoon 400 oo culays container melihi. run ahaantii assessment numberkayguna waa kan ama fadlantaydu waa tan. Okay, waxaan markaa tig baan saarayaa halkaas ay ku qoran tahay select. kabacdina waxaan leeyahay select mar labaad. marka aan select gareeyo waxaa halkan isoo fadhiisanaya waa bulletadii. run ahaantii halkan waxaa locationka hadeer waxa weeye diyaar maaha, laakiinse waxa weeye waa on the future. halkan waxaa soo geli doona locationka dhammaantood. halkan identification and goods exit place of exit halkaad ka baxayso. run ahaantii waxaan leeyahay waa Mira Gate. geedkaasaan rabaa in
uu kasoo galo gaarigaygu isla markaana uu ka baxo, halkan waxaa iisoo baxaysa waa transport detailska, halka laga rabo macluumaadka in aan geliyo transport ID-ga, which is markaa noqonaya taarkada gaariga. waxaan leeyahay 150 200 5041. run ahaantii waxaa qofku gelinaya marka waxa weeye taarikada saxda ah ee gaarigiisa ama gaariga uu rabo in uu ku rarto badeecadiisa, run ahaantii si loogu soo daayo ama loogu ogolaado marka uu soo galayo iyo marka uu baxayaba. driver ID-ga run ahaantii waxa weeye waa licensiga qofka gaariga wada. isagana waxaan leeyahay 200 5067. driver name-ka, driver nationality-ga which is Somali, run ahaantii cid kasta noqon karaa, Soomaaliya baan leeyahay ayuu u dhashay. driver name-ka qofka darawalka ah magaciisa waxaan leeyahay waa Cumar. imarkaan transport detailska aan soo dhameeyo waxaan u imanayaa balletadayda, kabacdi waxaan rabaa in aan sheego inta package ama kartoon ee aan la baxayo maalinkaasi. halkaa item haddaan doono aan kala jejebin karayaa, waan odhan karayaa maalinba waxaan la baxayaa 100 kartoon, maalinna waxaan la baxayaa 44 kartoon. haddaad halkan eegto waxaa iisoo baxaya total packageska aan haysto, culayska aan haysto iyo nooca ay ka kooban tahay alaabteedu, maxay ku jirtaa ma kartoon ma box, wax kasta. okay, waxaan leeyahay waxaan la baxayaa maanta, waxaan la baxayaa waan leeyahay 100 kartoon. okay, culayska uu dhan yahay 100 kartoonna waxa weeye waa 300 oo kg ama weight ama culays. kabacdi waxaan leeyahay automatically save. at the moment aan save siiyo waxa weeye optionkii hore waa kasoo baxay. haddaba waa inaan raadiyo si aan isu diiwaan geliyo, still ma diiwaan gashana. declaratiga ayaan waxaan ku dhufanaya officeka, waxaan ku xijisiinaya declaratiga, waxaan leeyahay ii raadi alaabtayda waa tan, waa stored, still ma diiwaan gashana. optionka waxaan ku dhufanaya loo yaqaano actionka, waxaan leeyahay edit, bal waan iska hubsanayaa haddaan wax ka bedeli karo iyo haddii alaabtu ii saxsan tahayba. okay, markaan hubiyo waxaan la baxayaa 100 kartoon oo u dhiganta 300 oo culays. okay, waxaan leeyahay markaa register. at the moment aan register siiyo waa ay alaabtaasi waa aan diiwaan geliyey, macluumaadkaygina waxa ay u dhacaysaa maxay qolyaha customka. markaan raadiyo haddii aad eegto registration number bay qaadatay oo loo yaqaano exit ama E7 ayay qaadatay, waana registered. marka aad intaas samayso waxaad leedahay view, waxaa laga rabaa in aad generate garaysato ama aad la soo baxdo warqadan si aad ugu keento qolyaha customka ama aad ugu soo dhiibi karto cidda badeecadaada kuu soo qaadaysa sida darawalka gaariga oo kale. kabacdi markaa waxa weeye waa in aad printer garaysataa warqadan. halkaasaan ku dhufanayaa print, automatically waa ay iisoo degaysaa. exit note has been printed successfully. it means waxa weeye waa lagu fuliyey waana laga aqbalay exit note-kaagii. warqadaasi marka aad diyaarsato marka ay computerkaaga ay soo dhex gasho, fadlan 2 copy ka samee, copyna adigu lahad, copyna waxaad u dhiibtaa qolyaha customka ama saraakiisha customka. wixii faahfaahin dheeraad ah run ahaantii kala xiriir dhammaan xafiisyada kugu dhow ama xafiisyada aad shaqo wadaaga aad tihiin customyada sida dekedda iyo airport. run ahaantii saraakiishu mar walba waxay diyaar u yihiin in ay kaa caawiyaan dhammaan wixii caqabad ah ee aad kala kulanto nidaamka casriga ah ee Somkaas. shaqo wacan.